ديجان كدوعالي بقى وحبضا يعني دور كم مقلي دوعالي أنا جاهيسن عيدا كان جا جوجا دوعالي أنا جا جوجنا دوعالي وطن سفي عنو فيريا ماشي أيدو فيسدا كقطين ويده وهاي سلقي أرجع حسدا اللي وقع بقولي هذا سنة تقع أفكار مرمرين يو المصبح يو وحاول يساقي وحكوا بقولي وطن halkan waxaan ilaa qabalayga dawacalay saaka runtii baan soo galay inay nimankii inay hoggaansamaan diiday aan muddada ka warsugaynay markii horena sida sharci darrada ah ku laayay ciidanka dawladda yaan saaka si nabadgelyo u soo galay kadib xabad bay nagu bilaabeen marka hadda meeshii waan ka saaray waxa weeyaan marka ninkii Soomaalida waxay dhihi jirtay ninkii soo jiibso soo joognay waa soo jiibsan laga helaa علينا قاعدين كوهنا وعشاء بيشوفينه والنبيذ أمني صغيرنا. أدر دوعالي دمب شكر ظهرت ويصور دماتي إذا كان نيو بوليسكا عيا قاعدين كوهيا الدور دمب أو قري وطا ما تي عرور ويجوجي كران لكن قري وطا أو دمب أو دوعالي نحجوك سنة ياي هرت أي هذا الكيدو دمب ويوجد دماتي إذا كان نيو بوليسكا قاعدين كوهيا waxaa sidoo kale dagaalka hadda qayb ka noqdayba ciidanka militariga ee dalka Itoobiya maalmihii ugu dambeeyayna waxay lahaayeen anaga dawladda dhaxayna dhaxgeeya dawladda dhaxayna horgeeya dawladda dhaxay ogaadeen ma maamulayo ayay lahaayeen militarigi ayaa bal wargala dagaalka la argagixisada dhulka ka bixiya waxa dooranaysan bal ka saaray bal argagixisada qayb bay dagaalka iyagana ka noqdeen waa dul istaagaynaa waxa dhinaca kale iyadana idin wadaa muuqaal qiiro badan waa kuwa barorto ay waxa la soo gaarsiiyay gudaha magaalada Balligubadle dhaawac tiraahan ilaa 6 dhaawac hase yeeshee dhaawac uu soo socdaa dhimashiyo dhaawac badan oo jira wadaragta dhaawacyadii wadaday ku soo jiraan ragi waa dhamaaday ragi waa ba'ay jabba horta maanta gaaray idoor dagaalkii maanta waa lagu kala baxay ayagaana jooga laga waayay intay wiilal dhowra meel ku dileen bay farasho ku bilaabeen farasho inay fadhaan bay bilaabeen meydadkoodii baa hadda daadsan dhaawac waxay la carareen mooyeene meydadkoodii baa daadsan gaadiid iyo maxaabiis tiro badan baa laga hayaa waa inala wadaagi doonaa muuqaalka fogeeya meel dheer ka tuura meel dheer ha laga tuura muuqaalka like ha la saaro oo ha la share gareeyo oo gurubyada ha lagu tuuro raggi waxa weeye ninkii soo joog laga waayo soo jiif baa laga helaa waa la seexiyay jooga laga waayo waa la seexiyay maanta farda awliyo ayaa helay arbaa dushooda laga shaxay midna ku darsaday waxaan la yaabanahay inay idoor aqli xumo ka tahay garaad yari ka tahay waali ay ka tahay kibir ay ka tahay dulmi ay ka tahay ay caadeysteen ayaa kala garan lahay idinkuna taas baan jawaabteeda idin deynaya soo dhawaada fogeeya muuqaalka meel ka tuura aynu ku bilownay dagaalkii maanta dawacaalay gabi ahaanba horta waa lagu kala baxay saacada kooban bal islama gaadhinba maleeshiyaadkii halkaas sanadkii ugu dambeeyay lagu abaabulaya argagixisada aha ee dhibaatada waday ee ummadda dhibaateynayay ee amni darrada abuurayay gabi ahaanba cagtaa la mariyay markaan anigu idoorina leeyahay isaaqina leeyahay uma wada jeedo isaaq xumaanta kama wada sinna xaasha yaan la ii qabanin laakiin runtii waxaa ceeb ah oo la yaab ah intii maleeshiyada Hargeysa laga soo daadgureeyo ama ciidan qaran ha noqdaan ama argagixisa ha noqdaan ama maleeshiyad beelada ha noqdaan la yiraahdo gudihii dawladda deegaanka Soomaalida dagaal ka ridaynaa arba haddana meydadkii intaan ku istaagnaa waxaan leenahay cagdheeray waka ciidankii deegaanka waka ogaadeen waan dhamaynay waan baabiinay haddana waxa ku sii darsanaysan ogaadeen anaga nama xukumayo adisaan hoostagaynaa arrintan maalmahan la fajacay in la yaabay ee ummadda Soomaaliyeed oo dhan la yaabtaa taas war meeshu miyuusan deegaankii Soomaalida ahayn war meeshu miyaysan ciidankii New Booliska meeshay joogeen ahayn war meeshu miyaysan ahayn nimankii intay argagixiso intaasoo kun ah oo isqarxinaysa intay eryad kaga soo bilaabeen hiiraan agteeda keenay si loo soo eryay dhinacan kalena shabeellada hoose keenay miyaysan ahayn nimanka lagu istaagay la leeyahay wakaas iska ka celi
gabal baa u dhacay horta gabal ayaa u dhacay meesha waxa weeye meeshu waxa weeye ay moodahayeen ma aysan noqonin meel aysan moodaynin bay ka buskicisay meel aysan moodaynin ayay ka buskicisay malaku mawd baa u yeedhyeedhayay malaku mawd wax kale kuma garataane malaku mawd baa u yeedhyeedhayay malaku mawdkii u yeedhyeedhayay baa loo geeyey marka oo si emergency weliba afka looga geliyey saaka dawacaalay gacanta ciidanka new booliska ku haya ciidanka new boolisku way iska soo galeen magaalada iyagoo yaaxaya ayay soo galeen kadibna rasaas bay fureen oo dee meeshay ku sugnaayeen oo saldhigyaha uga qodanaa hoberiska unbaa la yidhi saldhigyadii waa laga qabsaday gaadiid badan baa laga hayaa maxaabiista ilaa sodomeeya hadda la ii xaqiijiyo la yidhi 30 kor bay u dhaafayaan baa la yidhi maxaabiistaan gacanta ku hayno odayaal waaweyn baa qaybka dhimashada halkaasi meydadka yaalla waa 20 sida goobjooga halkaasi ku sugan uu xaqiijiyo wuxuu yiri 20 kor bay u dhaafayaan meydadka halkaasi yaalla dhaawacyadana afkiinaad ku maqlayseen 6 hordhaan baa naloo keenay wadadayna ku soo jiraan bal waxa way gubadle qof joogo waxayna wixii xaqiijiyay dhaawacyada hadda la keenay 12 ayay kor u dhaafayaan buu yiri wayna ka badan karaan buu isbitaalada loo qaybiyo qaarna waa emergency horey baa loo sii waday si kastaba muhiimadu waxa weeye war meeshii gacanta ku haya ciidankii deegaanka gacanta ku haya ummadda Soomaaliyeed hambalyo argagixisadii halkaas baa horta u dambeysay xuduudda la goysay oo dhulka baadiyaha ayaa la sii eryanaya dhul hawda baadiyaha baa lagu sii eryanaya ciidanka new bolis maxaa ku taqaanaan new bolisku markay cagta ku mareen dagaalku bilowdo horta ma istaagaan haddii iyaga la jabiyo waa baab kale laakiin hadday wax jabiyaan ka hari maayaan xataa ishal askari hadduu yahay askari halka askari baa daba soconayo cayrsanaya noqo oo bal naftaada badbaadi xataa ma garanayo wiilasha iyagoo xataa gawaadhidii dagaal wadanin bay saa usii eryanayaan oo hawkay ku sii eryanayaan horta kartaas waa ku dhacday horta nimankii doonaha maanta dhibaatadaas baa ku dhacay maleeshiyaadka argagixisada gul weyn bayna deegaanka Soomaalidu ay gaadheen maxaabiista gacanta lagu hayo sidaan horay idinkula wadaagay odayaal waaweyn oo dagaalka abaabulayay ayaa ka mid ah qaar dhinacaas Soomaaliland bay ka soo jeedaan oo sharciba kuma laha dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida oo Hargeysa ka soo dideen qaarna waa kuwii deegaanka ku sugnaa gacanta kuwa lagu haya waliba qaarkood waxa la ii sheegay inay ka mid yihiin raggii shirqoolay ciidankii new booliska ahaa ee nabadeynta u socday waftiga yar waxa oday nimanka dheen mas'uuliyiinta staafka u ahaa raggii shirqoolay ee shirqoolka la socday ee ciidanka ku ballamiyay ku korballamiyay inayba ka mid yihiin ragga la qabtay baa la ii sheegay iyadana way soo kala cadaan doontaa oo maamulka deegaanka Soomaalida war ka soo saari doono dagaalkan hadda maanta ciidanka militariga dalka Itoobiya qaybka militariga Itoobiya qayb uu dagaalka ka yahay waxa la yiri maxaad oranaysaa dhulka argagaxisa qabsatay argagaxisada gala leeyay ayagana maalmaha hore waxay lahaayeen anaga waxa weeye federaalkan la hoosgeeyo intay rag laayeen federaalkan la hoosgeeyo federaalkan nagu rabnaa waxay ahayd haday wax laayeen inay deegaan ahaan dadka joogay aysan waxa ku hadlin oo ay dhahaan maqlaysaan fidma wadayaal baa dilay wayna gudbeen xuduud ay ka gudbeen oo xalka sida ay ku soo dabaalaan iyagii deganaa ee martida ahaa ee la ilaalinayay ee jeesaska yar ee qoysaska meesha deganaa dawcaalay deganaa baaba qaylo bilaabay taqaaq waka ku kordhaantaysi ayay bilaabeen cadeer maxay naga qaadi kartaa arab waa balaayo hebel waa balaayo isaaq waa balaayo hebel waa balaayo maanta maxaa la laqsiyay marka baaruda afka laga laqsiyay marka waxaan leeyahay habacsanaanta Mustafa Cagjar iyo xukuumaddiisa ayaa maanta sabab u noqotay in maleeshiyaad Hargeysa iyo Burco laga soo daadgureeyo oo la yiraahdo waa dhulkan ay xoreynayaan ama ayba dhahaanba waxa weeye hebel baan laynay ogaadeen baan laynay ree hebel baan laynay ay dhahaan oo maanta iyagoo magac qabiil iyo maleeshiyaad argagaxiso ku soo gabanaya ay deegaankii Soomaalida amni darro ka abuuraan waayaan daro inteeda leeg haddii se maanta la go'aansaday oo maleeshiyaadkiina laga sifeeyay waa in xuduudda la adkeeyo waa in ciidanka new booliska ay saraynta sharciga soo celiyaan oo amar lagu siiyo waa ay ku filan yihiin gacanta la hayay waa in ciidanka la sii daayo la fasaxo way ciidanka in la fasaxo way oo waxay yihiin la tusiyo ma jirto wax la yiraahdo
ogaadeen baana xukumaya ogaadeenna ma xukumaya toona meesha waxaa ma yaallo dowlad deegaan soomaaliyeed baa meesha taalla ciddii ka hor imaatana oo ayadu qorshe kala wadatana dee madaxa laga gurayaa waa in madaxa laga gura weye ma jirto wax la yidhaahdo anaga ogaadeenna ma xukumayo hebel laga xukumayo ogaadeen waa ku xukumaya haddii qabiil loo dhaadhiciyo waa lagu qasbaya laakiin dowlad baa ku xukumaysa oo maamulka dowladda deegaanka soomaalida la yidhaahdo ciddii ka hor imaatana waa in loo xiiraa waa in loo xiiro weye dawacaalay soo maaha dadka maatida ee hadda maanta gacanta lagu hayo ciidanku yaysan xadgudub ku samaynin xadgudub yaan lagu samaynin gabdhaha iyo haweenka iyo caruurta ha la ammaan yeelo oo yaan xadgudub lagu samaynin taas ciidanka new booliska farayna waa lagu yaqaanayo xoogaa markay meel ciidan deegalo waad iska garanaysaanoo way gadoodsan yihiin oo rag kaga dhinto dee way iska gadoodsan yihiin oo waa la garanayaa oo dhacdo waxbaa ka dhici kara marka ha la isxakameeyo ciidanku ha isxakameeyaan wixii kasoo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa halkaad naga daawanaysaan waa Warsame Media iyo sidoo kaleeto page-ka wariye Santaag Daahir fadlan nagu soo biira naga mid noqda mar walbaba daqiiqad walba wixii kasoo kordho labadaasi page ayaad naga daawan kartaan